annaga waxaan dareensannahay wax ku talagal ah oo la diiday in nagala talageliyo oo la diiday in laga hadlo oo loogu talagalay naloogu talagalay annaga oo dee markaan hadalnana naloo sheegaayo waxyaalaha nagala rabo oo shuruudo iyo conditions leh oo ka mid ay tahay hebel xildhibaan ma ka dhigaysaan waa kuu daynaynaa kuwa kale waxaas ma bixinaysaa kuwa kale waa kuu diidaynaa annagaa inta kuu taagan ma yeelayna la leeyahay waaye waxyaalaha aan diidanahay marka maanta oo 2020kii la joogo 22dii la joogo Soomaaliyana ay marxaladan marayso ma aqbalayno in isbaare iyo baad siyaasadeed nagula sameeyo wax la yeeli karana ma aha waxaa tihiin xildhibaanadii koonfur galbeed oo la soo doortay oo sharciga ahaa maanta waxa la dulmiyey oo jidka loo taagan yahay oo sida sharci darrada lagu haysto oo baadda loo haysto oo isbaarada loo dhigtay oo ra'iisul wasaaraha especially uu dhigtay oo shuruudihiisa ay yihiin hebel oo aniga gurigeyga ka shaqeeya xildhibaan iiga dhig haddii kaloon ahayn arrintaas ii sameey bas ay tahay shuruudda annagana ma rabno nin gurigiisa nin ka shaqeeya inaan xildhibaan ka dhignee nin koonfur galbeed u shaqeynayaan rabnaa inuu xildhibaan noqdo haddii taas ay shaqeynayso kuwii kaloo guryahaada ka shaqeynayo oo boosaaso lagaaga soo diiday baa ka dhigi lahayd kuwii guryahaada ka shaqeynayay oo deegaankii adiga aad ka soo jeeday joogay oo gaalkacyo looga soo diiday baad yaad u rakaatayn lahayd ood u celin lahayd gaalkacyo iyo dhuusamareeb oo adiga deegaankaadi ah kuwii adiga aad rabtay oo laga soo diiday yaad u celin lahayd ood ku qasbi lahayd annaga marka mana qasbi kartid mana aqbalayno wax Soomaali aysan qabin in annaga korka nagala saaro aniga shakhsiyan 20 sano anoo jiro yaan diiday isbaaro qori wadad isbaaro qori lagu wado yaan diiday 20 sano anoo jiro maanta anoo 50 sano jiro oo madaxweynihii koonfur galbeed oo 2022 la maraayo wallaahi baanan aqbalay nin kasta oo in ka mid ahna haddii lagu sameeyana saasan ka taaganahay qof kasta oo adinka in ka mid ah qof ii gooni ama yaan ka taaganahay waxaan rabnaa dawladnimada Soomaaliya in la ilaaliyo dalka in loo turo sidii aan ugu turaynay waxaan rabnaa wadankan waa booga badan yahay waa la soo aruuriyay waa la isu keenay waa la isu dulqaatay waa la ilaalinayaa wax magaratada habeen iyo maalin ka shaqeynayso dib u dhac dalka oo habeen iyo maalin ka shaqeynayso inay dakane hor leh iyo dhibaato hor leh iyo qalaqaybin hor leh dadka Soomaaliyeed ku suubiso inay joojiyaan dib u dhacana ay ka daayaan wax allaale wixii mas'uuliyad ka timaadana ayaga qaadaya mas'uuliyadooda